السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا ليال وانيقو مركا ليديكو سو نقضي سيدي عادة إنو هاينا موقال عصب إذن لو داقية موقال كان يوحو كسابسي هاي إن أن مركا لهدان إذيكو عليو وحيان هور إذيكو شاقل داد كان إذن دلايا داد كان إذيكو نوليسي نولول حن أو ليدتا وقوما إدن دليسا وأيو هالكين يدليان sababta ay wax la bedeli laayihiin ay dad wanaagsan u noqon laayihiin waa maxaa ugu wacan halkan baan maanta idinku cadeynaya waxoogaa anoo soo koobaya hadalkayga ugu horeyn dadkani markaan doonayno inaan ogaano cidda ay yihiin iyo halka ka imaadeen waa inaan tagno doono maxay ku noolaayeen maxayna ahaayeen dadkani waxay ka soo jeedaan odayaal aabayaashood awoowayaashood waxay ahaan jireen dabadhilif u shaqeeya haddii ay noqoto ingiriiska xagga Somaliland haddii ay noqoto Ethiopia xabashida la shaqeynay haddii ay noqoto Djibouti na Faransiiska la shaqeynay kolka waad garan kartiin dadkani waa dad weligoodba ummadda shacabka reer Djibouti isbaaro u samaysan jiray mooryaan ahaa ka shaqeyn jiray dibta shacabka sida ummaddan maxaa ku rahdaa uga وان قعدتي نوسو هوس قليسان او قوميستان تاسي كفكري جرين هابين الدرار قار ابياشود وحي هايين هيلبليال قار وحي هايين ابياشود محان كور هذا فوستوين بريح جرين قار وحي هايين كولي قار وحي هايين دميرة دي بيها كودامي جرين قار وحي هايين محان كور هذا ان كوا ان قدافد ايو ميلاحاس كشاقيستا qaarna waxay haayeen kuwa dayusnimada iyo daleysiga iyo ummadda dhibaatoonaysa ama shacabka dhibaatoonaya ee liita sadumarka iyo rag qaarkood ayay ka faa'iideystaan oo dheef ka raadiyaan isticmaalaan dadkaas marka waxaad garan kartiin dadkan inuu xumaan weligood bay ku jireen asal ahaanna deegaankoogii waxaa ka soo eriyo dhagax kaga soo eriyo rasaas iyo midi u qoori waaye abtiyaashood iyagoo cagaagan oo kaba aago shaaga laga sameeyay taayirada sita oo qaaqaawan oo xafajale ayaa wadanka Djibouti iyo Ethiopia soo galeen Ethiopia waxay sameeyay tareenkii bay isbaaro u xidheen oday kasta iyo wiil kasta oo aday qaadaya oo iibinayo ka baayac mushtaraya Ethiopia Djibouti dhexdeeda oo si kontrabaan iyo si caadiba u galaya ayay ku jabsan jireen cashuur bixiye iyagoo yaadhiga ni sheegana kule iyagoo taaka ka cabsiiniya waana run way sameyn lahaayeen oo yaadhiga u sheegi lahaayeen waayo waa fataalnimadu dhiigga kaga jirta waxaan waa dhaxal la iska dhaxlo marka dadkaasaan ka sugaynaa naxariis dadkani waxay ku tashadeen inay kabaqaad noqdaan inay u shaqeeyaan ilaa intay dantooda gaarayaan gacmay dhiiga la galeen dad badan bay dhabarka ka toogteen wiilal badan gabdho badan habla badan bay mataqaana iyo wiilal ayay mataqaana faraxumeen lagu sameeyay ikireen jireen iibin jireen gaalada arabta waxaasi ka shaqeystaan waa xumaan maahe wax kale ma garanayso maskaxdoodu damiirku ka dhintay ceebtooda maaha waxay tahay waa caadadooda marka iyaga waan garanay dadka aynkaas ah inaad sa u garatiin halka ka socdaan iyo waxay la wanaagsanaan lahayn waa waxa soo miraway kolka ka sugina inay noqdaan dad wanaagsan waa in gacan loola tago waa in mataqaana af iyo adin loola tagaba in far lagu daayo ma hadii kale iyagu maskaxdoodu ma damiirkoodu ma siinayo waa dad narcissistic ah waa dad wax walba isla jecel waxay u shaqeysan liminta qof kale ku faanaan iyaga sheegta qof kasto wanaag ka shaqeeyo oo aan ku noqda saana way kaga takhalusaan way neceb yihiin waxay ka helaan dadka fusuqa iyo dayusnimada sidoo kale ku jira ay xumaanta wada wata keentay maanta inay ummadoo dhan ilaahay ka fogeeyaan ay fusuq iyo dayusnimo ay baraan ninka aynkaas ah ee madaxa u ah Ismaaciil Umar Geele laftigiisu haddii ay la gudboonaato inuu naftiisa badbaadiyo marwadiisa ablihiisa caruurtiisa qaraabadiisa waxaan oo dhan ka wada baxsanaya tiisa uu badbaadin diin male ilaah ma garanayo shaydaan buu garab ka dayaa shaydaan buu cudud ka dayaa shaydaan buu ka aaminsan yahay in badan ilaahay intuu aaminsanaan lahaa
shaydaan buu aaminsan yahay nin shaydaan aaminsanna dameel gidaafada ku dhex noolaada weligiinba waad garanaysiin shaydaanka waxaa la yidhahdaa meesha gidaafada hormoonka ee uskaga ayay ku dhex noolyihiin kanna waa saas oo kale wuuba ku raaxaystaaba urta Jabuuti markaa waa kaas barasho wanaagsan intii hore u ogeydna waa baraarujin iyo xasuusin kuwa imika ay ku cusub tahayna imika ha ogaadaan kolka idinkaynii taalasaad ka yeelaysan iyaga ka sugaysaa inay isa saxaan ay is hagaajiyaan weligiinba diimis maahay nolol tan ka sii liidata sii gali doonti